xukuumadda Soomaaliland ayaa xaalad degdeg ah muddo 4 toddobaad gelisay dalka waxaana sidaas shaaciyay guddiga madaxweynaha Soomaaliland u saaray kahortagga cudurka khatarta coronavirus. ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi Bade isaguna faahfaahin ka bixiyay go'aamada kala duwan ay soo saareen waxaanu tilmaamay in dhammaanba fasax la geliyay goobaha waxbarashada maadiyadii qaarna la joojiyay waxa mar lagu soo rogay masaajidada iyo goobaha la iskugu yimaado sidoo kale xukuumadda Soomaaliland waxa ay sheegtay dhammaanba shaqaalaha kala duwan ee dhanka caafimaadka ee ka howlgala goobaha gaarka loo leeyahay inay si toos ah u siman doonaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland muddada lagu jira xaaladani ugu horreyn wasiirka faahfaahinaya ayaa yiri xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay dhammaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay sida cusbitaalada iyo shaybaadhada iyo shaqaalaha ka howlgalaba waxa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo waxa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah isku diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow goobaha waxbarashada dalka dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dawladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha iskuullada caadiga ah ee maalintii la dhigto iskuullada hoyga ah ee boardingka ah xarumaha agoomaha waxa lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dawladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda waxaa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta Khamiista ee bishu ay tahay 19 bisha 3aad 2020 masaajidada waxaa lagu amrayaa dhammaan imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo sidoo kalena waxaa la farayaa inay xidhaan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020 dhammaan imaamyada iyo muwaadiniinta waxaa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka bulshada waxaa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda waxaa la farayaa imaamyada inay ducada qunuudda ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkani isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka xafladaha casuumadaha aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfashada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020 socdaallada iyo duulimaadyada diyaaradaha dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku haleyn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee Jamhuuriyadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya iyadoo rakaabkaas loo sameyn doono baaritaan dhammaystiran laguna sameyn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland waxa la joojiyay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha Talyaaniga Iiraan Faransiiska Koonfurta Kuuriya Spain Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo maalinta berri laga bilaabo 19 bisha 3aad 2020 waxa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarrada aan muhiimka ahayn ee dalka dibaddiisa waxa dhammaan qurbo-joogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaallada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso guddiyada gobollada ee u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus si loo xoojiyo u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus waxa la dhisay guddiyada gobollada oo ka kooban guddida nabadgelyada ee heer gobol oo ay xubin ka yihiin
isudubayaasha wasaaradaha soo socda wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka iyo wasaaradda horumarinta waxbarashada guddidan aan xusnay waxay fulinaysaa qorshayaasha iyo tilmaamaha wasaaradda caafimaadka. Kodiguna halkaas waxa ka hadlay wasiirka warfaafinta Salebaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye Toorno iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland. Sababaha ugu badan ee lagu yareeyo xanuunkan waa waxyaalaha isu imaatinka aynu ka badinay. Arrinka waxa inoo maamulaya wasaaradda caafimaadka waxayna siinaysaa tilmaantaasaan fulinaynaa meelaha noocyadaas oo kala ah waxa fulinaya ciidamada amniga ee Soomaaliland. ciidamadu markaa waxaan faraynaa talaabada ay qaadayaan waxa weeye wax kasta oo ka soo horjeeda arrimaha ka hortagga aynu ugu talagalay inay si toosa tallaabo uga qaadaan. bulsho meesha la isugu yimi inay ka xidhaan, meelaha ganacsiga la isugu imanaya xadlaafka inay ka xidhaan, munaasabadaha aynu ugu talagalay inay maxaanku idhaahdayay badbaadada ay tahay inay ka xidhaan, wax allaaliya wixii tallaabo laga qaadaya inay ka xidhaan. maadaama aynu bahdii meediyaha nahay waxaan idinkula dardaarmayaa oo idinka codsanaynaa in aad si milgo iyo mas-uuliyadi ku jirto aad warka u tebisaan oo aanay warku noqon mid dadka dhib ku sameeya ee uu noqdo mid nasteexa ah oo ummadda si run ah iyo siday uga badbaadi lahayn dhibaatooyinka xanuunka ilaahayna kuma keeneen inaad dadka fartaan oo aad si mas-uuliyadi ku dheehan tahay ugu gudbisaan dadka. horta waxbarashada goobaha la xidhay kala reebid male ilaa waxay ka soo bilaabayaan malcaamadda iyo kuwa barbaarinta caruurta dugsi hoose dhexe sare jaamacad maxad kuwa luqadda lagu barto kuwa kombiyuutarka lagu barto meel wax lagu barto xitaa meesha gawaarida lagu barto meel wax lagu barto oo furnaan kartaa ma jirto laga bilaabo 19 bisha saddexaad oo maalinta khamiista muddo 4 toddobaadaba ayay xidhnaanaysaa. Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa. daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhnow.